بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. عاوة وهبين جمعي سوغليسة لباتني كوغا بيش الله بيتمنات أما ديسمبر كون سقال بقول أما لبكون يتواني تضوضي أوديغان تا موافقسا أفرتا بيش أفراد هجرية كون أفر بقول سقالي صوتنا كجرنا النبي عليه الصلاة والسلام وحفرحاد نوعه إنه مرتين نوعي هاي شيخ عضو تقانان شيخ مصطفى حاج إسماعيل ودعاء أمد الصوماليات علماء هذا كمدة مدبضا دعوة إيو خير كان كلمة بدن كسوقاتي أي مرتين نوعه فرحاد وين والنوتة هاي سيدا دبتا Soomaalidu waxay yiraahdaan xareed maalin walba daadsano culimadan afaaqda ka imaanis oo cilmi badan iyo khibrad badan iyo tajaarib badan xambaarsan in la helo oo wax aad naadir ah aadna u kooban marka in laga faa'iido xareedda la qaato oo sanawaad lagu gudbo waa muhiim guud ahaan muxaadaraadka in lagu dadaalo waa wax طريق متبع oo la yaqaano nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam sameyn jiray culimadeena ay in badan ku boorin jireen waxaan xasuustaa sheekh Umar Faaruq alayhi rahmatullah wuxuu dhihi jiray muxaadaraadka maruu jaamacad sameeyay noogu yimid muxaadaraadka lagu dadaalo khaasatan raga culimada way markay yimaadaan muxaadaraadka lagu dadaalo ciladu wuxuu kaga wuxuu dhihi jiray al muxaadaraat ilmu sana halkii muxaadara cilmi aad sanad hay lahayd oo kitaabkan wax ka baar kan wax ka raadi aad helayd ayaa nin caalim ah oo khibrad dheer laho muddo badan ku soo jira diintan soona baxtiyay ayaa ku gali kadibna cilmi aad sanad ku heli lahayn ayaa habeenkaad ku helaysaa saasuu sheekh dhijri alayhi rahmatullah yaana warka aad u badan in sheekh ayaan insha Allah taala majaalka siinaya cinwaanka muxaadaradana isaga ay u qarsoon tahay falyatafadal mashkuura maajura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى درس كوبانا وقصة بسيسن تاريخ الدعوة أما قصة الإيمان على ظهر الأرض أما سكالة هدين وطل مامنو لولا كحقية باطل كأنتي دونيدو سوچرتي ويا الرسوش إلهي صدر حق بيكون واقعين أهل باطل كنا باطل بيودين دونيدو انتي سوچرتين لولا كاساكشري سكالة هدين ونراهنا وجهودي أما وحقبتكي dadkii muslixiinta ahaa ee caalamka soo maray dhanka kale hadaynu ka eegnana waa weecashadii iyo inxiraafkii aadamuhu galay markaynu dhaahno taariikhda dacwadaynu ka waramayna waxay u egtay inaynu leenahay taariikhdii dunida soo martay baynu wax badan oo kamid ka waramayna waa maxay danta aan ka leenahay inaan darsigan akhrino waa inaan soo bandhigno الملامح الأصيلة لفكرة الدعوة الإسلامية وأساليبها العملية إن صوبا دقنو مقالة ربطة إلى ذهي الدعوة الإسلامية يباقس ضدك اللوغو باقي إسلامك إيا قاببك إيا أقبك الله استعماله سيادتك الدين توقيه له ومر لبادي وحن لاني تاريخ الدعوة مركز نكور رمينا معناه هذا حويانين ونكور رمينا شخصيات كي الرسوشة رسوشة إلهي صادر سبحانه وتعالى شخصيات كودي وحكم ذا إيوه تحديات challenges عقبات كي نولولا دي كهريمي إيا أزمات كي عالمي هاي دعيسي دي ودويين ما أنت عالم الإسلامي أزمة عالمية بكتيرها أما أنا لهنا الدنيا دوا أزمة بيكو شرته وهي الدنيا دوا حمضة حكو ضوبتي
dadaan cadaalad aqoon akhlaaq fiican lahayn diin dhabana rumaysnayn ayay madaxa ugu duubantay cumaamadda u xidhan walidalik dunidu asma bay ku jirtaa caalam alislaamina asma ka sii gaara buu ku sii jiraa oo intaan cid kaleba u iman iyaga gacantooda isku dhameeyeyba intaan cid kale soo gaadhin caalamulislaami waxaan odhan karnaa waxaa loo adeegsaday afkaartii caanka ahayd ee la odhan jiray the art of war buug baa jira nin filosofo hore oo chinese uu qoray ninkaa chineskii buugga uu qoray waadan buu galbeedka gaadhay reer barigu aad bay u yaqaaneen waa nin filosofa janan ciidanna ahaan jiray la taliyo madaxweynena ahaa dabeetana dowladdii wuxuu u qoray buug la yidhaahdo the art of war qaabka loo dagaalamo dagaalka loo galo markaa wuxuu ka warramayaa cid kaa xoog badan haddaa istishaan maxaad yeelaysaa colaaddu hadday adiga iyo kaa dhaxaysa maalan wuxuu ninkaa xoog weyn haddaad la dagaalanto oo dagaaladan dhex mara saad yeelaysaa gacantiisa iyo nabarkiisa gacantaadu ma waabin karto ma celin kartid colaadna waad huran tahay maxaad samayn buu isweydiiyey waa masalada ay ka ratibantay dagaaladan qaabkan loo dagaalamay konfuga iyo waxa kan la yidhaahdo ee chineska iyo maxaa la yidhaahdaa jabaniska iyo dagaaladan ay galaan waxay yidhaahdaan waxa ugu fiican ee lagu dagaal galaa waa cadowgaaga xooggiisu aad adeegsato waxay yidhahdaan maalan hadduu feerhka kugu soo tuuro oonad celin karaynin isku day inaad ka gaban karto inaan wejigaaga ku dhicin laakiin stebka labaadaad samaynaysaa waa maxay gacantiisii markaa qabo oo isa sii raaci xooggiisii isagu soo waday isaga u adeegsa bay leeyihin inaad tuurto markaa idan waa falsafa la yidhaahdo art of warka ugu fiicani waxa weeyaan bay yidhaahdeen dagaalka inaan adiga xoog iyo xoolatoona kaaga bixin laakiin cadowgaagu inuu xoog iyo xoolihiisa isagu isku dumayo waa wax soomaaliya ka jiro kale soomaaliya ma cid baa xoolo kaga baxday inay dunto no
ummadda nebi maxamedna waxaa ilaahay ku ammaanayba waa inay shaqadaa qabatay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah khayra umma ukhrijat linnaas baa lagu sheegay ummadtii u khayr badnaydee dadka loo soo saaray waxaynu isweydiinaynaa markaa ayuha alaxiba rususha iyo risaalada rasuulka iyo messajka uu sido waxyiga loo soo dhiibay waxay wada wadaagaan baa jira haddaad qur-aanka akhrido rasuul kasta markaad akhrido waxaad helaysaa common factor isir wadaag wax ka dhexeeya qisaskao dhan waxaasi waxa ay tilmaamayaan inay yihiin mucda ugu muhiimsan ee taariikhda bini aadamka marka aad rabto inaad isbeddel samayso kastoo aad rabto inaad isbeddel samayso waddada rusushu martay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamay waxaa laga bilaabo nebiga lagu yidhi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wma wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu kabura cala almushrikiina ma tadcuuhum ilayh allahu yajtabii ilayhi man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib diinta waxaa la idiin jidayey baa la yidhi wixii loo waxyooday ee loo dardaarmay nebi nuux waladii awxaynaa ilayk iyo kaanu adiga nebi maxamed oo kuu soo waxyoonnay iyo wixii aanu u dardaaranay nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise idan ambiyadan oo dhammi waxyi isku mid ah ayay dhan ka sideen dhanna waa ku kala gedisanaayeen waxyiga isku midka ay sideen waa maxay waa waxyiga tilmaamaya furaha bini aadamka furaa jira qofka bini aadamka haddaad rogto bes wuu furmay albaabka haddaad qafilka furihiisa heshana si fudud baad u geli kartaa haddaanad furaa hayninna dee ama albaabkaad jabin ama rabshad kala adigi waa adkaanaysaa inaad gudaha gasho aadanaha waxaa jira meel laga furo bini aadamka waxaa jira meel laga furo furahaasi hadduu rogmo waxa laaliya waxa ku xiga it will be easy waa fududaanaysaa hadduu se kaasi ku rogmi waayo waa adagtay kufaakac ka bixi maysid inaad kufto oo kacdo ka bixi maysid waa maxay kaasi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إلهي وحولي أمتك الرسول بانو صادري نبي وحا لغو يري وحي النبي إبراهيم لو وحيودا يا نوح يا موسى يا كواسا لغو سا وحيودا يا أدنا الله كاسانا الله يدين فريا waxaa kaloo ilaahay inoo sheegaya nebika ummad kastoo dunida soo martay rasuul baa u yimi yani dadka badhba moodaya rusushu dhowr iyo labaatankan qur-aanku ka warramo inay tahay ama ambiyadu intan nusuustu inoo sheegtay inay tahay maya qur-aanka iyo xadiidkuba waxay tilmaamayaan qaar badanoo kale inay jireen nebiyadii maraykan loo soo diray ama indiya loo soo diray ama dhulka laynoogama warramayn nebiyada laynooga warramay inta badan waxa weeyaan intii maxay middle eastkan iyo intii loo soo diray weeyaan qur-aanka inta badan nebiyada ku yaalla laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa fii kulli umma dunidan jirtay inuu rasuul u diray cid u digtay in loo diray rusushaasi maxay wadeen haddaba an icbudu allah anta waa tafsiiriyadii maxaa la leeyahy ucbudu allaha baa lagu soo wada diray maa lakum min ilaahin hayru ucbudu allaha wajtanibu طaaguut ilaahay caabuda oo طaaguutka ka fogaada waxaan alla ahayn inaa u sujuudaan ama caabudaan ama ka dambaysaan idan kalimatu tawxiid rusul oo dhan baa waday waxaa ka mid a dadkaa dad hanuunay baa ilaahay yidhi oo that means hadduu hanuuno qofku waa maxay dariiqa saxa ah buu helay iyo qaar dalaaladu baadinimadu korkooda ku sugnaatay oo waa kuwii diiday bal dhulka eegoo soo eega baa ilaahay leeyahy intii diidayna saan u galay idan ilaahay wuxuu leeyahay rusul oo dhammi hal waddo quray dadka ugu yeedheen one thing baa common factorka koowaad ah waa maxay waa cibaadat ullahi waxda waa kalimatu tawxiid waa laa ilaaha ila allah laga soo bilaabo nebi nuux
وأول الرسول علماء كنت المامان ربي صادر يا دي أول هداد مقشنا كل يبقى خصوصية دي سلي القرآن كوي حشجية سقال بقولي كنتم سنة دي مسألة دا ودي حلت المام يقولوا العزم جاينو كم دي قرآن كوحا وقصة أروري مجلس أفرتني يصدح شر سقال إيه لبعض صورة ضدنا وقصة أروري قرآن كو رسوش وكور رمي وحكم إذا نبي موسى وأفر يصدر صورة ضد إلى هيك كور رميه والقرآن كمكي جاءوا بدن قصص كيسة وحلقت المامية شن إيه لبعض موضع القرآن كم إذا قصة دي إلى هيك كور رميه بقول يا لحية صدق شربة مجلس كصار نغنغ القرآن لبعض كم إذا قصة فرعونية سيا كصار أروري حاول حنو قصة اللي نقول شيء ما هو النبي بابا يسهلن بقرة ضدك الله يو كاسو انت سامية وين نكفى ايدينه وين نلاش ما انت تشوكت يسبدل كذا قصة ما هو قصص كان قرآن كل شيء يا واحد كور رميان how to change سيب بني آدم كله بدله سوى حلاقة بطه ولذلك قرآن كمرك إلهي قصص كانوا قور مثل في سورة البقرة صدح رقيبات أو جهر رأيه وحلقة قور رمي شن آيات dadka ahlu iimaanka iyo sifaadka ay leeyihiin laba aayadood kafarada gaalada iyo sifada ay leedahay 13 aayadood munaafiqiinta iyo calaamadaha lagu garto inta markii laga waramay ayaa aayaadka ku xiga waxa la tilmaamay ilaahay inuu cirka iyo dhulka iyo waxa ba abuuray rabbi in la caabudo dabeetana qisat albashariya baa ilaahay tilmaamaya fardi iyo jamaacada fardi waxa laga waramaya qisadii nabi aadam jamaacana waxa laga waramaya qisadii تجاربته وجب بدن القرآن كوصار نقليه كوساب سنة يهودا البقرة ولا بقول لي حس ده ترايدود بقول إيه 8 آيات بكور رمي غير برو إسرائيل لا بقول لي حس ده ترايدود وبقول إيه 8 آيات كم إذا يكور رميان بلشة غير برو إسرائيل لأنها دعدو يمكن صامري that means كل الانحرافات وحي غلط سمايين إيه وحي صح سمايين بولا جور رميه وده هدي الله مرة لقول أيانا ولا جور رمية وده هدي الله مرة لقمنانا أيانا ولا جور رمية إذا قصص كقرآن كور رمية وتاريخ دي بني آدم كي يسيد الله صحه قصص النبي ياهين بقرآن كور رمية ومثلا أصحاب الخدود في سورة البروج ويلير وده دم بدلي بقى إلى هيك ورمية هل ويل وبالشدة دم بدلي وحلقة ورمية قصة ياسين سورة ياسين هل نينو حل قاضي حلكو قاضي وامحي ميل سدح نبي سدح رسول شوكتو أيها إلهي وحط المامي أن الدعوة كفافنا وحيت المامي سأل دعوته قف والله آدنا كم يدبين بوسو قبل ناي ضات الأهدان شيخ هذا يا شيخ الدعاء شوقه والله قاضين هذا الإسلام يقول حوالي قف كسطو مسلمي الصحابة يقولوا مركا إسلامان انتمائهم إلى الإسلام أياك إنسان يين الدين تضدك وقباقان مد مالين لك شوقا النبي قال الله عشان لك شوقا سدا عشان لك شوقا نقضة وتلك يودن دي تسوق لي مجرد إنه منتمي كن نقضة إنه انتماء إسلامي يليمي سورة ياسين الله وحكا ورميا ما قالوا لبر رسول الله دري أو بينسي ومت صدحات لقوا دري أو بينسي صدح رسول بينسي أما الرسول حق الله كتمها هذا أما الرسول كلها سيدر منذرين هذا ما نسوى على وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ما قال هذا الكودم بيسنين أرد يا كيم باليري رجولة أي الوصفي رجولة نمد ذكورة نما ما هذا رجال نمد يلا بنمد وكلا لبا لب نمد وين لبا حين يتكوي يالي لكن مش يجي سر رجال نما رجولة بقى القرآن كمركو رجولة ده أنت بدن تلمامي واحد أركرتها رجال لا تلهم تجارة من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عادوا عليه رجال لمدو وكجد سنتهي بيد هذان أن لبن ماذا وكجد سنتهي نين كان رجعني ما لقوا تلمامي وحكى الله شيء ماشي اللي يسكو هيينا نشوجين لكن مسؤولية ودريمي ملك لوكسو عر وركاسو قاعد يسوق ملك لشوجه dabeetana wuxuu dareemay in xil saaran yahay inuu sanadadka u digo isma oranin war saddex rasuul baa meesha joogay adiga maxaad qaban saddex rasuul la diiday maxaad sheegi idinku de laba sheekh baa leedin meel ay joogaan ama saddex sheekh maxaad sheegiye ninkan saddex rasuul meel ay joogto
ayuu xaytay oo leeyahay adna xil baa ku saaran markuu yimina xilkiisii buu gutay oo uu leeyahay aqbala kuwa idinku yeedhaya maxay ilaahay aan waxba idinka doonaynin aqbala qisas baa ilaahay qur-aanka inooga warramaya asxaabu sabti baa ilaahay ka warramaya waxaa laga warramayaa qisaska suuratlkahf ku yaalla qisadii fityatun aamanuu birabbihim ama qisadii khadar iyo dhex martay nebiyullaahi muusa ama qisadii ninka mu'minkaa iyo ninka beerta haysta ee kaafirkaa dhex martay ama qisada yani qisas badan baa ilaahay kaga warramaya 4 qiso kala nooca iyo qisada ibliis oo dhex taalo ah ayaa lagaga warramayaa fi suurati alkahf kullu hadihi alqisas qur-aanka markaad akhrido ee daraasayso waxay wadaagaan baa jira waxa ay wadaagaan waa meesha laga dhaqaaqa haddaad rabto inaad islaax samayso haddaad rabto azmada inaad ka xoog badato haddaad rabto change inaad bulsho ku samayso haddaad rabto horumar inaad samayso that's the way buu qur-aanku leeyahy waa taa waddadu laakiin diyaar ma una inayn waddadaa marro weeyaan waddadan calaamada maxaa u ah kow waxa calaamad u ah ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru qiso kastoo nebi markaad akhrido inta badan waxaad arkaysaa nebi weliba muxuu talkii ku leeyahy اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلهي عابدا كالجي عدك لولا عابدا ملهدي في سورة الشعراء نبي كاستمر كلا جور رمم حليه فاتقوا الله واطيعون الله أنا كعب صدى أنا يطيع أبو الرسول اللي بلي إذا جتك الله يا الرسول كيس لا أدعاء أيا أجتك وحكو إصلاحان أيا أجتك وحكو إصلاحان dadka badh baa waxa laga yaabaa inay yidhaahdaan war naga daaya mushkilad siyaasiya ina haysatee mu'miniin waa nahay mushkilad kale siyaasiya ina haysataa ama mushkilad iqtisaadiya ina haysatee dad mu'miniina baynu nahay maca aynu mu'miniin nahay jidkan buu ka bilaabmaa ay rusushu ka bilowday waayo qur-aanku wuxuu ka warramayaa mashaakil kala gedisan bulshooyin ay haysatay iyo sidii loo islaaxiyey ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا meel kastoo qisada shucayb aad qur-aanka ku aragta waxaad arki doontaa iyadoo kayl iyo miisaan iyo laa tabkhasu nnaasa ashyaahum laga warramayo macnaheedu waa maxay wuxuu yimi ummad mushkilad dhaqaaleed ay haysato tuuganimo dhaqaale ay jirto laakiin markuu tuuganimadaa islaaxinayey wuxuu ka bilaabay tawxiidka marka hore dadkan inuu rabbi ku xidho kadib buu ku xigsiiyey mushkilada iqtisaadiga ah nabiyullaahi huud qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dee qoomkaasi maxay ahay caad irama daati alcimaadi alatii lam yukhlaq milaha fi lbilaad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد لبدا كو حضاره بي لهاي ما لا يراده ادو بلادن مثلا القران مركو كورماي وخا لهي اسغو نبي الله هدي وخو لهي اتبنون بكل ريع ايه تعبثون
ورميل كستا مع علامة كو عيار سما متالوين يوح عيارة أيا كسمين إنسان وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين وحتى الماما يا مصانع يا هرمر يا وحنا إلى هايين وحوت الماما يا حق بدني ذا كبر بالغ قادا أنت بدن دتكو قفك بني آدم كهدو مرق السيا شيب كيسو بطه أنت بدن كبر كيسو رو بطه شو الدولة ده هني مكواوين ما درك مرقو ده يحوق ده بطه ده بتنا كبر دني ده أنت كلام حيلين وين اسكا كايدا بصعطان إلهي وحولي يسوع كور رميان من كاسي وإذا بطشتم جبارين ده وحقبتنا الدت كبري سيدود بوحو قبرسان إذن مشكلة حضارية بكشرت بين هذا قرآن النبي لوط مكور رمية ملك استول لوط وكيا لبا قضية أخلاقية بلغ ورمية ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال الشهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ومشكلات كمان أنت دون ديالة قال هذا المقالة كسارة ويدهدن وبدأ الدنيا أن يستاهري لأن نسندي فيها إذن هو مشكلة أخلاقية أنت الرقة وحكات دونتين الدمر كما كتقوه ومشكلات أخلاقية نبأ الله صادر مشكلات داين وسلاحية لكن توحيد قالت المامية وحلاني مركها أي مشكلة دونيدا تالله فرهد كوات وحويا محي وتوحيد وين الضدك الرب قد كحده وين آخر حسوستان وين إلهي كدم بيان وين وقادم بني آدم كدونيدا هدان لحسابه إننا وحوق بطبع عد كلو حسابه سيدي شرته مالين إنه إيمانا يسوع رد هانددا صور إياه الصورة دي يعد بتشره تريد أن تكون نشوف حق استاذ سمس وحين ما كاين يراهذا ماشى أتاج أنت هدات كذا كأقدر للصوره والفوم كاجي ولا صوص صار كراحتها عدك ولا بارك راه لكن يمكن يو تكنولوجيا كمان تيالا عدت كأنه بكلا صار كراه عدتك كلنا هدي لا ينوشيجو ميكرو هدي لا ينوشيجو ويف لانجت كيسية باند كيسنا وصوص صار كنا يعني إنك BBC ذا كهاد ليا هو ذا عد كيسي الله دري إنه هالكن فرفدنا سوق قبلنا هالكن هو ذا إنك صوص صارنا عد كيسي واحد عدكم ما بابه وويفيس ماشي بوشوجا هذا مرينا سر رب السماوات واحد مالته عدالته إلا مالته عدمته مرك هالكن لقى صوص صاره ملفق لقى قدوني مايو آدنيه بقى يمكن هالكن وحكي صوص صاريا سؤال ملك لك دوني إذا هذا رد هاندي ده هذا صور يسورة بل وحكي استواد جيستي دوني ده إنه ما أنت تشوفونه ده دكتورين بوليس كوكو أرخية وقفكم يوسمية خيامين ما يا قانون كمر هردابا لا يكتا بوليس كيا قانون كيا وحاسي وقت أي هردان أيا ده كان يسايو واحد دنبيه سمين كرتات سميسو قفك هدات كردا دعيسو دينك إيمانك إلهي كليني مديس آخر إني دنبيسو قفل بو حق يستين لقو عقابيو وماشي إصلاح وكبل أبو قفك تفرها كل ركتا يضان عدي إلى لين بو إلى شيء وما باهنا أوديتنج إيو بوليس يا قانون وما باهنا قانون كي أوديتنج إيو بوليس كي واحد قبطان مد كثيفة سهادة لكن هذه برشلونة اللي متوجن نقطة ما قانون بقى بنكريا يعني أفريقيا ما لكن يوم برشلونة دم بقى واحد وضع لا لوشنا قاعدته تقانون حقوق قبل بنكريا dadka marka inta badan ay toosantaa midka qaloocan la qabtaa kaasoo qaanuun ku qabtaa laakiin bulshadana oo wada qaldan qaanuun loogu taageli maayo walidaalika asalku wuxuu yahay inaynu fatxi alquluub samayno dadkan quluubtooda in la furo asalku islaaxu wuxuu yahay dadkan rabbigood lagu xidho asalku wuxuu yahay dadkan inay gaadhaan martabada iyagu islaaxin karaan naftooda second to that baa mushkiladooda gaarka la tarkiisiya قرآن كمرك هذا يكتو ملك استو قصة النبي موسى لقى ورميه فساد سياسي لقى ورميه من كبري وفرعون لورنشري ودكتاتور شيبا وقبائل دنيا غيردن يعني رجنا لما يسار وحنا شان ولا دليا وكبر كوجارسيا أنتو خطبة وتشيديه بلشة صوت منه إذا أنا ربكم الأعلى ربك كره بلشة ككاله
madaxweynta agtiisa ah wasiiradii iyo barlaba wixii madaxweynta agtiisa ka dhaweyd mala abu ku yiri baa ilaahay leeyahay ma calimtu lakum min ilahin ghayri ninka mala asaawla hadlaya macaamadu u habsaamaya markaa intii kaaga dhaweyd buu leeyahay ma calimtu lakum min ilahin ghayri mala ku yiri qadiyada siyaasiga ee dictatorshipka ee xurriyad la'aanta ee adoonsiga caynkaasi markii la islaaxinayay hal istoorta lagama bilaabin iyo xurriyad dadka hal si waxa laga bilaabay xurriyadu waa inaad rabbiga u adoon u noqotaa dadka wad ka xoroobaysaa markaa makhluuq ninaba wogaansami maysid xurriyataas la yiraahdaa inaad rabbiga iyo qura adoon u noqotid nabi muuse tawxiid buu ka bilaabay oo ah inuu dadkan xoreeyo iimaan ahaan markay iimaan ahaan u xoroobaan kadibna qadiyada siyaasiga la isdul taago oo laga waramo idan waxaan leenahay nabi kasta mushkiladii taalay wuu tarkiisiyay xoog buu saaray laakiin furaha ma ilaabin furaha tawxiid buu ka bilaabay kadibna mushkiladii qoomka haysatay buu ku xigsiiyay waxaan leenahay waxyaabaha qisas al-anbiya markaad akhrido ka wada dhex muuqda waxa ka mid ah wax qabadka bini aadamku midhaheeda inuu ku doono aakhiro laba wax baa jira waxaad qabanayso inaad adduunka midhihiisa cunto iyo waxaad qabanayso inaad aakhiro midhihiisa cunto waa laba ra'yo dunida yaalla qof haddaad tiraa waxaa qabo wuxuu ku leeyahay maxaan dheefayaa maxaan aniga soo gelayaa maxaan helayaa buu ku weydiinayaa okay dad hunguri wado ma la wadi karaa ummad dhan oo kule maxaan helayaa ambiyadu waxay waday dadka inay ku tiraahdo aakhira wixiina helaysaan dadku inay aakhira rumaystaan walidaalika nabi waliba wuxuu ku leeyahay dadka markuu la hadlayo mesela fi suurati ash-shu'ara wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin nabi walilay waxana aan wado iyo isbedelkan raadinayo idinkagama doonayo ma as'alukum alayhi min ajr wax adduuna idinkagama rabo in ajriya illa ala allah ilaahay baan ka rabaa inuu abaal mariyo idan dadka muslixiinta ee dhabta ah nafciyin maaha kursiga isaara maxaad u doonaysaa waan idin soo boobayaa buu ku leeyahay reeruna waxay leeyihiin kaasi waa nacas oo waxba kaba keenin intuu meesha joogay tuuga la amaanaya makaa hebelaha wallaahi laba bilood oo qudhu shaqeeyo reerkii laba guri u dhisaa lagu leeyahay macnaheedu waxa weeyaan tuugada way isku wada waafaqsanay adna haddaad tagta laba guri baad dhisi lahayd say inuu islaaxayna markaa halkii laga odhan lahaa kaa Soomaaliya laba bilood buu shaqeeyo tugtu kala jirin weeyaan ummadii uu soo xaday cidiba odhan mayso waxa la ninkaas waa nin rag oo labadii sanadood ee dawladda u shaqeeyay laba guri ka dhisay marka waa ammaan tuuganimada ammaana idan dad dhammaantood raba inay adduunka maxaan boobaa oo adduunka igu soo galay taagay ambiyada waxa loo soo diray cagsiga inaanay adduun raadinin adduun may doonaynin waxay leeyahay anagu waxaan wadno kuma rabno wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin waxaan anigu ku yeedhayo wuxuun baan ku doonayaa ajarkaygo dhan rabbul alamin kan ka rabaa ولذلك الصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عيد مشاهر وقرطين يا مغشين دولة مشاهر سينشر يا قفنا بكو مغشين واحد مشاهر لسينشر ما يشرين نما كان الدنيا ده حاجة كلا والروي إيه بدلي قفنا بالوحو ما صو حاضرين نبي محمد ما صو حاضرين وما حيق بنيين وحيق بنيين إلهي الدرتي بيقودين kaala ya waa dagaalamaysan baa la lahaa hubkooda isaga soo iibsanaya faraskiisa isaga iibsanaya seeftiisa isaga iibsanaya zaadkiisa isaga sita ina dagaalgeeyna waa taagay saxaabiga nabi maxamed soo raaco la dagaalamay qariimadii la helay ayaa bad la siiyay wuxuu dhaw xoolaana waxa la yiri waa qariimadaynu soo helay wuxuu ilaahay rasuulkiisa aanu kuma soo raacin xoolo haye maxaad rabtay waxaan rabay buu yiri halka la iga mudo aan janno galo anigu jannaan raadinaya midhar halaa iyo dhowr neef aadhiya maaha waxaan doonayaa anigu jannaan raadinaya hadduu run sheegaya buu nabigu yidhi ilaahay waa u rumayn halkii baa laga muday shahiid buu noqday aakhirkii yani ninkaa xoolaha la yidhi waanu soo helleho le anigu xoola uma socdo adduun maan raadinaynin haddaan adduun raadinaya buu leeyahay adhigayga ma iska raacan lahaa idan ambiyadu dhaqankay wadeen waxa weeyaan kan
ولذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هشيسكي كواد الدولة الإسلامية كل دلتي يعني دولة دي كواد الإسلامية جهادكم أي دلانين جهاد كواد لوجود دفاعي وأنا لوجود بلادي دولة الإسلامية كواد الإسلامية هيد تعاقد يتعاهد بكل دلتي ده وحكوه الشيء بيعة العقبة الثانية صحابة وقول تمين النبي عليه الصلاة والسلام حكي عربتي هوري حاجة شرتي مالتي هوري ضد يربو يمي تيل لبعض دوري تضباط قف باويمي دوري تضباط قف نبي محمد هشيس بيلق لي يعني عليه الصلاة والسلام أين سوي جروده أو مدينة ما دمكو لو خيامين كربا لو خياميني عندنا قدر بالله يدي دين تنبرته دور قبيلان نوان سلامين هاي تضباطن إنه الصحابة أبو كدري حقه مركي لا تجن تضباطه كيبو يسود لين لبن نبى كبحصدي رجع وكدري نبى ورقد السيدي اللي يريبو إنك مدح ضوا قبيل كاسيوديب ورقد مركو يسيوديب دوان ما لقوا بالله ما ين لا دلبه متبلا يدي حاجة دم كمرة ورنجلي حاجة دم أنتو كسر مري أيو ورن حاجة كلا وقصار هدي قلاء أدو تكتو والدعوة يدين أدو تكتو ومرك أدو تكتاي ورن حاجة دم كأجليا ما حد ورا الله ورت الله إنما كان قاعد عياد الله إنه سما هذا يو والله إن خيامة يدقر بعد عدا يو باب كسادو كهذا لهاي نكنا محو كهذا فزت ورب الكعبة بيري واللي هو نقول استي الله كل عرطيه وقوش شيء يا وامحي تجنوا سعدين وهرو حولي الدنيا مقع مرادين وحولي فزت isagoo dhagartaa lagu sameeyay oo la khiyaamay oo la dilay oo waran laga saaray ayuu xuleeyay fustu rabbil jann wa rabbil kaaba idan waxaan leenahay maclamka saddexaad ee ka muuqda taariikhda anbiyada markaad quraanka akhrida waxa weeyaan wama as'alukum alayhi min ajr wana marka ay diintu dadka qalbigooda galayso qofka bini aadamka haduu dareemo in jeebkiisa ku socoto ismari maysaan saxan kama أروى دكتور ولا كرسي يدوني يعني يلعك تيدوني جاب كيري بعدا ده شكا بلا ما يوانا كيري قد عيا بين غنسا لكن هدي عداتين أنو نكنا وحبك كهرب كرسي كأجن الدوري نين لعك هذا الدوري نين وإحنا غنسا والله نكنا وارين لوجيكا وحب معقول الشيء يا يبل أن جيسنو ولذلك بقى أنبياء وحي لهاي وحبي يدك الدوني منه لا مقع ولا ماموس ولا كان ولا وحنو يذكربنا ما شرته
إلهي بانو أجر كقربنا إذن سمدي دتكي دوني دا وحكا بدلي دعوة دا علامة دا صيلها waxay kaloo lahaayeen dadkii dunida wax ka bedelay calaamad ah inay rabbigood ku xidhan yihiin mar kastaba inaan bini aadamka muruqiisa iyo xooggiisa iyo wax kan u muuqan dunida markaad joogto maanta hadday dowladda maraykanku tiraahdo xoog iyo xoolo iyo dhaqaale iyo wax walba ku siirinayo waxa sameeyo waxaad oranaysaa wallahi dowladdii xoog ahayd ba ku dhinac taagan soo maaha you can do baad leedahay waayo waxa taageeraynu ka hadlay waxaynu isugu sheekaynaa mujtamaca duwaliga ina taageeraya dowladihii reer yurubka iminka inoo soo jeestay oo way dhismaysaa dowladnimadeena waxba kuma dhismaan nin waxuma dhiso dadkii muslixiinta ayaa ambiyadu mid bay wadaageen cududda koowaad ay ku tiirsayn inay rabbigood tahay yatawakkaluuna cala allah rabbay ku tiirsanaayeen zaadkooda dhabtii markaa wuxuu ahaa dikrullah ilaahay xuskiisa inay badiyaan inagu xuska imse dowladood baa ina taageersamaynu badinaynaa imse inala socda dad kale xuskood aadanaha xuskiisa aynu badinaynaa laakiin iyaga waxay ahaa dhaqankoodu ay badinayeen maxay xuska rabbi walidaalika nebi muuse iyo nebi haaruun markii la diray ee ninkii ugu qooqa badnaa dunida loo diro fircoona ilaahay muxuu ku yidhi idhab anta waakhuuka biaayaatii walaa taniya fii dikri baa ilaahay yidhi ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى waxaa ilaahay ku yidhi adiga iyo walaalkaa taga aayaadkayga idinkoo sita walaa taniya fii dikrii baa ilahay yidhi aniga xuskaygun ha ilaabina that's all aniga xuskayga ilaahay inaad xasuusato oo dikridid oo wardidid oo ku xidhnaatid muslimiintii hore marka mushkiladii qabsato ama wax ka xidhnaato xagga rabbay u carari jireen habeenkii bay istaagi jireen wardigay badsan jireen ilaahay ku xidhnaantiisay badsan jireen dadku iminka tusbaxu waa bidca la yidhi wardigana waa la raaciyey soo maaha salaada dabadeeda inta akhridaan mayna qof wardiyaa ma idinku jira abu hurayra wuxuu leeyahay maalintii 12,000 oo jeer baan wardiyi jiray ayuu subxaana allah iyo astaghfirullah da akhri jiray wax kun akhriyaa ma inagu jira maalintii maalintii kun goor ama subxaana allah ama alxamdulilah ama allahu akbar yidhaahda awraadda nusuusta ku soo aroortay boqolka iyo soddonkaababa dhiba oo dadku laazimi kari laayay ilaahay wuxuu ku leeyahay nebi muuse iyo nebi haaruun aniguun xuskayga haylaabina idhaba ilaa fircawna inahu taga fircawn taga waa kibray baa ilaahay leeyahay waa sheegaya kibirkiisa laakiin aniga xuskayga haylaabina baa rabbi ku leeyahay subxaana wa tacaala إلهي محو قرآن كان قلت الماما يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا حكوا حقا واذكروا الله ذكرا كثيرا وابدا قال هذاك الشام بقى اللي قال لك ولنتان سقمة حقي بعد مدد كرادين إلهي بدل حسبة لقولي مددكم حقا سوشراي واذكروا الله ذكرا كثيرا قرآن كانت كلمة الذكر أركتو أنت بدن كثيرا وضبط الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا إلهي القرآن كوحنا قلت المامي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دعواتي وجوه الرئيين لو سودي بو حكم دها إن الله تببر مسألة ربي إنه كحد ناضو يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر حكوا حقي يا أيها المزمل ها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه بكرة واصيلا وقرآن دي وجوه الرئي النبي محمد كسودة وحلو ترنجريني عليه الصلاة والسلام إنه كونك وحب بني آدم شو يقولنا كهرتك وكلي دنيا إصلاح بالله صادره ملعب بالله سودي سعيدا بالله سوسي إنه واحد نقول هذا والله ما شو دعوة والعقب يوبا أنت ورقالة لما هي وكرو ورقالة وما بهنا إلى هنا تكون حدنا تابع يوبا أنت بني آدم كسجى رقالة سمية ضد مركز شاد رقالة هذي qofka bini aadamka isaga dhaqaalaha dhaliya dhaqaale bini aadam lagu ma dhaliyo ahadan uu isaga dhaqaalaha
سادرادد إلهي وحو النبي صوصار عليه الصلاة والسلام اللي هبين كي كعنتي سبضا أما وحوغا كيره أما نسكي كع أهي الله تلمامي وحلوت المامي قرآن علص بالوسود دشني باللي وهم رسالة علص وهي بشر كودن بدل المركز اللي يري وقول ثقيلة لكن وحل يرين أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة هبين كي استاكتو أيا قمد هذا سوكس بدن بالليل وأقوى مقيلة وحلوت المامي واذكر اسم ربك إلهي حس قرآن كآخر وتوتل إليه تبتيلا
isطaahiri wاlrujsa fahjur xumoo dhanna ka hijrood baa la yidhi ka guur walaa tamnun tastakir walaa tamnun tafaasiir badan bay culammadu saareen laakiin waxaa ka mid ah ha gallad sheeganin waxoogaaga yaraa diinta dadka u sheegtay adigoo badsanaya ama dadka wax kaga doonaya ama ay kula badan tahay adigoo isleh waxaa laga yaabaa intaad hal kitaab dhigto inaad tiraa wallaahi daaci weyn baa tahay adigu dee duruusta adigaa weli wadoo laasimay waxoogaa yaroo aad qabatay inay kula buurmaan oo aad iscajabiso is tidhahdo adigu wixii lagaa rabo o dhan waad fulisay walaa tamnun ha galadaysan adigoo tastaktir ay agtaada moodaya inay badan tahay kula badan tahay iyo kula badanin baa laleeyahy intaad qabanayso walirabbika fasbir nebi maxamed waxaa lagu yidhi isagoo keliya dunida loo soo diray fasdac bimaa tu'mar baa la yidhi waacrid can ilmushrikiin wixii lagu faray dadka gaadhsii ku dhawaaq feedbacka dadka ee caydoodii iyo maagistoodana ha u dhegtaagin baa la yidhi waxay doonaan ha sheegaan waa wadaad iyo waa waalan iyo waa marakudheg iyo waa radical iyo waa fundamentalist iyo waa xagjir iyo wararka ha iska wadaan wax ka badan baa ambiyada lagu lahaa waa saaxir iyo waa maxaa la lahaa wax badan baa la akhrinayay idan waxaynu leenahay nebi maxamedna wuxuu inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya qul hadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii wakhtigii salaaday gaadhay waxaan ku soo koobaynaa oo leenahay ilaahay wuxuu qur-aanku leeyay walow shi'naa labacathnaa fi kulli qaryatin nadiira falaa tuطic ilkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira haddaan rabno tuulo kasta mid u digaanu usoo diri lahayn ee gaaladu warkay sheegaysa ha aqbalin baa ilaahay yidhi laakiin waxaad ku dagaal gashaa baa ilaahay leeyahy kitaabka qur-aanka ah kitaabkan baa xalkii oo dhan sidee isaga ku dagaalan kitaabkii la yidhi ku dagaalama innagu waxaan leenahay carruurta ha qaybto mid yar baad intaad degta soo qabataa waad malcaamadda keenaysa adna maqaaxidaad fadhiisanaysa warkan yar waxba waajibku ma aha adiga ahayd inaad qur-aanka qaybtoo baratid oo akhrisatid waxaynu carruurta u xiijinaynaa inaba ma rabnee markaad tiraa war carruurta maxaad macnaa hay waxaan isleeyahay hadhow ha anfaco oo adiga weyn ba hadduu ku anfici waayo isaga muxuu anfacayaa adiga weyn ba haddaanu ku anfacaynin maxaa kan yar u anfacaya yani caqligu wuxuu ahaa dadka waaweyne intay qur-aanka ka dhargeen inaynu idhaahno kuwa yaryarna aan la gaadhno yararkuna yuu ka lumine laakiin inta waaweyn iska dayso inuu noqdo kitaab carruureed oo kuwan bugaagta yarra carruurta loo dhigo kale inuu noqdo unoo la yidhaha carruurta qur-aanka loo dhigaya carruuri qur-aan dhigato war qur-aankan waxaa loogu talagalay inuu dunidan bedelo nebi maxamed waxaa lagu yidhi falaa tuطic ilkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalo warkeeda aqbalin laakiin isaga ku dagaalan baa ilaahay yidhi qur-aankaasi isagaa xikama dad qaar baa iminka yidhaahdaa hay arrimii caqligaa war caqli ka weyni ma jiro usuusha caqliga ee qur-aankaa sheegaya usuusha caqliguu ka intilaaqo qur-aankaa tilmaamaya qur-aanku inama laha caqliga daboosha bale ilaahay wuxuu tilmaamaya wax walba burhaan waxaan lahayn inaanay xujaba gelin waxaan burhaan gelin inaanu xujo haysanin idan qur-aankaa caqliga inoo sheegaya qur-aankaa wuxuu tilmaamaya naarta caqli laawunbaa gala baa ilaahay yidhi socankaa maaha qur-aanka ilahay muxuu ku tilmaamaya ahlu naarkaa waxay dhahaan low kunaa nasmacu aw nacqilu ma kunaa fi asxaabi saciir inta caqliga beeshaa naarta qabata caqligu hadduu janno ku geen waayo ma caqlu noqonaya waxaan leenahay qur-aanka kani hadday usuul caqliya tahay iyo hadday usuul sharciya tahay iyo hadday usuul wax kastoo bini aadamka baahidiya tahay isagu ku jira haddaba ayuha alaxiba kutubu taariikh aad baadhaysaan war qur-aankan baadha kutubu taariikh inta badan ma qoraan dadka fatxi lquluubka sameeyey futuuxaat alquluub nimankii qalbiyada furtay waxaa laga yaabaa marka aad tagtaan kutubu taraajum iyo kutubu tabaqaat iyo culammada kutubta ka warramay meelaha inaad ku aragto ninkaa caalimka oo 10 kun oo qof ay dhegaysanaysay ama sheekh hebelo wacdigiisa 10 kun ku islaamtay ibnuljawsi oo kale marka laga warramayo ama cabdilqaadir jeylaani oo kale marka laga warramayo bil aalaaf baa islaamay ay diin soo geliyeen bil aalaaf bay rabbeeyeen bale waxay yidhaahdaan dacwadii sheekh cabdilqaadir aljeylaani waa sababaha keenay qudus in dib loo xoreeyo waayo jiilka xoreynaya ciddii tarbiyaysay bay ahaayeen laakiin dadka fatxi lquluubka fura
taariikhdooda inta badan lama qoro waxaa laga yaabaa maalan saljuuqiyiinta ma maqasheen dowlad la odhan jiray salaajiqa salaajiqadu waa usuushii turkida tan dowla saljuuqiya iyadoo shiica ay qabsatay meeshii oo dhan oo boqorku aanu qiimo lahayn oo meel daran ay sii socoto ayaa turkida gaalada mid baa ka soo cararay in yaroo ciidana wata طغرل بك بالينادا هذا أرطغرل ماها الدولة العثمانية عثمان كيدا لي ماها كا أرطغرل بالينا كان طغرل بك بالينادا طغرل بك أسمركو صوغل طغرل بكني و ألا برسلان يعني ما كيكو أبتر صدان ووجي سيسة دحد ميا مالها طغرل بك نيو هذا دون بأي إسلامي ودين توشة جاي markuu islaamayna ciidamadii muslimiintii oo ninka ahlu sunnaba madrasadaas dib u soo noolaysay waa madrasa nidaamiyaya iyo Baghdad nimankii dib u xor saljuuqiyiintu muddo aad u iyadoo xaqanna shiicay ka soo wado iyo gaalo xaqanna Masar iyo dhankan oo dhan Faatimiyiin haystaan caalamul islaami baa qiira ku jiro ayaa Ilaahay kuwa u bixiyay miyaa maqasheen cidii soo islaamay ma garanaysaa هذا ندون إذا إسلامي غفري أما الدولة العثمانية إسكندن وحكابلها بنتي أرطغرل ألا برسلان مثلا كهركو أبتر صدا وبقر ونكي صاحري بقر كده ما يبي الدولة البيزنطية إلى هيد النص تتقال الكلام مع بقر كده صاغبته لكن وحاسيه كوي مادين سكلانو تلمامو وما غشين تتار نما الله يدها صماها وعالم الإسلام تشيري أوكي تتاركم مركي مريين ما شاء الله يقانو إن فلسطين ممالك تبى تشوتشي سوتشي بيسي صحيح كماها عالم الإسلام وحيد باي هيستين يا كحرية يا كحرية ما غشين إذا ما ضمبوا حاجة ضمبوا قال يو نما كي تتار كاتشبي ما يا تتار كلفتيسي أيوم بينت علومها شيء iyaga qulubtooda furatay dabeetana iyagu baa dawlad islaamiga noqday tatarka laftiisi saddex qaybood bay noqdeen saddexda qayboodba hoolaako kuwa wowga wahaba dib loo islaamiyay ilma jankis kuwa wowyada wahayeen ayaa dib loo islaamiyay dabeetana iyagu xooggoodii iyo wuxoodiiba haysta ayaa islaamka dib u faafiyeen idan waa fathil qulub wa du'aat wa dad diin ku yeedhayay qaarkood wadaad miskiin oo suufiya islaamiyay dabeetana waxa soo dhabay dib u dhaceen andalus markay soo jabtay meelaha kan barbarkii sii joogay طريقة القادرية wadaadda masaakiin oo suufiyiin oo ka tirsan baa islaamiyay oo dib islaamka ugu soo celiyay dabeetana islaamku dib u soo kacay maxaan uga dan leeyahay markaa inaan tilmaamo waxaan rabaa inaan idin tilmaamo taariikhda dhabta ee islaamku uu leeyahay waa ducaad oo rasuuli ugu horeyso oo ambiyo ku xigto oo muslimiinta ay ku xigto dadkan dagaalamaya iyo dadkan dawladda maamulay iyo dawlad wanaagga lagu sheegay nin kasto dawladdiisu wanaagsanaatay waxaad maqlaysaa uun caalimkii muslimka ee tarbiyeeyay caalim muslima ninkan ku dadaalay oo noocan ka dhigay dabeetana isna cadaaladu faafiyay oo waxa kan buu ka dhigay idan ayuha alahibba waqtiga kooban ama warka badan oo dadkaba uu ismasaxa warku hadii la badiyo warka inuu koobayno daraadeed waxaan leenahay kitaabka taariikh ugu fiican ee la daraasay waa quraankaasi waxa u baahantiin ha ku akhrinina aqliya fir'aun iyo muusa bari jiray oo dabeetana halkaas ay maro aqliyada ha ku akhrina aqliya maada astafiidu min maxaa ilaahay ugu sheegay way ilaahay qisaskan igu soo guuriyay maxaan anu ka faa'iidayaa hadana wax tar lahayn ilaahay inoo ma soo guuriyay waxa la inoogu soo guuriyay inay noqdaan waxa nolosha lagu binaynayo وقابكي دتك صالحينتي نولش او بنيين iyo kuwa mufsidiinta hay qaadkay u fasaahadiyeen sadaradeed quraanku wuxuu ka warramaya waxa laaliye wixii wax fasaahadiyay iyo wixii wax islaamiyay aadam iyo shaytaan ka soo bilow ilaa iyo taariikhdatan ay quraanku sida kitaabka yar koobane
waxaynu u baahanay markaa il kale oo aan isha ku akhriyi jirteen ahayn inaan quraanka ku akhrino taariikhda il kale oo isha ku eegi jirteen ahayn inaan ku eegno islaaxinta il kale oo aan ahayn isha siyaasiga ah madaxweyne ridiya madaxweyne saar ilaa ahayn inaynu ku eegno inaynu nolosha saa wax looga bedelo baranno sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin جزاه الله خيرا شيخ مصطفى حاج إسماعيل كلمة قيمة بدن وآتكي رنتي لو فايديستي نقصو قادي قرني أن أنجو نقا قادي ونقيسي بداية الدعوة هي خليقة أبور كذا إلى ما أنت نسوه كان حرتي مرمى هذا ومقصد كذا ومقوينا in dacwadan islaamka taariikhdeeda wax badan laga barto gundhigna uu yahay kitaabka quraanka kariimka ah sidoo kale in aad iyo aad noogala boriyay kana faa'iidnay in dacwadan aynan culimada iyo dadka doobabka weyn xiran ay xikri iyo gooni u ahayn oo nin walba oo kalimada tawxiidka ku dhawaaqay diintana wax un ka yaqaan haba yaraadeen ay waajib ku tahay inuu dacwadan guto gaarsiiyo fadliga ay leedahay lama koobi karo aayaadka iyo xadiiska soo aroorina lama koobi karo الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد أيا وحو إسبربر دقيا جهادك في سبيل الله هي دعوة ذاتك لقارسيه مركز وحو ليه وتبليغ دعوته أفضل من تبليغ السهام في نحور العدو إن دعوة الله سبحانه وتعالى ذاتك لقارسيه وذاتك لا يصير إنا يقارته لغانا الشقية أيها كفضل بدن أيوليه إن عدوك دونتيسة ماش هدو الشيخ التلمامة صحابيك إلهي ويدي سبحانه وتعالى إن كقدعة ورنك كقدعة ماش أيضا عدوك إن محوها الليب لك قدفته وحكى فضل بدن إن دعوة الله سبحانه وتعالى ذاتك لقارسيه محيا لي أرنت أيضا ودعوة أما بأرنت اللي يبكى ضد بدن باسميه ومحوها إني وحدلان أما وحمحوها دقالمان ومد بدن باكاذك لكن تندعوذ الله سبحانه وتعالى قارسين تيدا وحوليه إمامك عليه رحمة الله وحاوي استاغ ورثة الأنبياء ذاتك أنبياء دحلي ومحوها ومهندي شغدي أنبياء ذاتك دحلي ويان نم والبا كلمات برتينا وحاوي تاغن حديثك وشيخ نقوبر محوها حزوسيي وها بلغوا عني ولو آية مركا إنا دعوذا نتاغنانو كوضا الشقينو shaqo ay noo noqoto ka xanuunsana xoolaheena waan ka xanuunsanaa caruurteena waan ka xanuunsanaa waan ka naxna waan ka laxjacloonana ee wax gaadaan laakiin dacwadan maxay u noqotay dacwadan maxay u noqonaysaa mid yatiim agoon maxay u noqonaysaa maxay rajo u noqonaysaa maxay tollaan u noqonaysaa dacwadan oo laba wadaad oo iyagaba daalan duruuftooda khaaska ah hayso looga hadlaynaya annaga xaggan jirna arrintaas marka waa arrin runtii walaalayaal loo baahan yahay inaan isku kaashano nin walbana uu dareemo cid inuusan ku hadlaynin دعوة أو هول وذا تعالى إنها أيضا إن شاء الله تعالى كلمة يكسو كوميسا جزا الله الشيخ خير الجزاء مرة أخرى وجعل ما قالوا في ميزان حسناته ولا حرمنا الأجر كذلك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله